الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. آذانك صلاة ذاتك اللغة ييرو علماء وحي هذا والتوقيفي وأمر إلهي أفر سبحانه وتعالى النبي سنة عرب كيسا اللغوشة صلى الله عليه وآله وسلم مركا إن لكورديو intii nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam uu sheegay in ka badan lama ogola in laga naaqusan oo laga yareeyo lama ogolo ilaa xaalado kooban oo iyada laftirkeeda nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam uu sheegay mooyin. horey ma u dhacday marka in sidan oo kale in dadka la dhaho guryihiina ku tukada oo masaajida ha imanina? arrinta iyada ah xilliga nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam way dhacday. bukhaari muslim waxay soo saareen in alimaam cabdullahi ibnu cabbaas xabr الأمة ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وارضاه إن مؤذن كيسي كيري معنين فوق النيت مركي أتر هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أتر هذا وحير هذه حي على الصلاة وحاطر هذا صلوا في بيوتكم تريهن كنت كذا هذه حي على الصلاة صلاة الوقت عليه أما هلا إماده dadka marka arrinkaas way dhibsadeen ama way inkireen markaas wuxuu yiri arrinkan waxa sameeyay mid aniga khayr badan oo nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu nabigeena nacayay dadka inay dhooba isbiro raxa ay ku socdaan ayuu nacayay marka arrinka isaga ah waqtiga nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam sidoo Abdullah ibn Abbas sheegay sidoo kale Abdullah ibn Umarna oo isna asaas sheegay sida Bukhari Muslim isna ku sugan nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam habeenka qabowga badan roobka badan wuxuu fari jiray muadinkiisa inuu yiraahdo ala sallu fi rihal warguriyaha ku meesha degantiina ayuu nabigeena sallallahu alayhi wa sallam marka waa hadiye nabigeena uu lahaa sallallahu alayhi wa sallam in hadii xaalado keensan ay yimaadaan aadaanka inta la raaciyo ama la dhexgeliyo. waan gartay marka maxay yihiin sababaha ay diinteenu markaa noo jideysay ee masaajidda marka looga baaqsan karo adoo noo soo koobaya? sababaha waa dhowr sababta cad oo axaadiistan bukhaari muslim ku yeela ku cad waa roobka iyo dhaxanta aad u tirada badan oo roobka la socota iyo simbirraxada iyo dhoobada iyo wixii la midka ah. sidoo kale nabigeena sallallahu alayhi wa sallam xaalada waxaa jirtay dadka wadarma ahaan maxaa mid uu qaar u yiri ha imaanina masjidka waxaa ka mid ah ragga soo cuna toonta ama basasha ama waxyaabahan aanan carfoonka fiican lahayn amaba qofka u dhisan dadka waxyaabaha soo cuna inay masjidka imaanin ayuu nabigeena sallallahu alayhi wa sallam amar ku siiyey isagoo ku canaanani marka waxyaabahaas noocaasa sida roobka sida qofka inuu muxuu ahaa xanuuna gudbaa qabo iyo wixii la midka inuu masaajida ugu haro uusan u imaanin kolleyda axaadiiska waa laga qaadan karaa wayna ku cadda. sida aad adigu ka war hayso baraha bulshada iyo warbaahinta caalamkan aynu kala soconno wadamo badan oo weliba wadamada carabta ama muslimiintaba u badan waxaa masaajida markaasi ka dhacaya aadaankii oo lagu darayo markaas sida hore baan usoo sheegnay in ay dadku guryahooda ku tukanayaan marka aadaankiina weliba u dhacaya dadkii mu'miniintana iskuma imanayaan marka soo kama habboonayn in haddiiba dee dadka salaada u imanayn in aadaankin la iska joojiyo? maya aadaanka waa ogeysiin inuu waktiga galay waa baraarujin qofka in ilaahay subxaana watacaala uu salaadii waajibka ahayd oo faradkeed uu ka rabo waa shaciiro min shacaa'ir islam calaamadaha muslimiinta lagu garta weeyaan marka in la adilmo oo salaadii xilligeedii dadka la ogeysiiyo shaciirada islaamka kor loo qaado dadkii la baraarujiyo waa maqaasida iyo ujeedka loo jideeyey aadaanka marka marna iyada ma dhacaysa laakiin wixii aadaanka markii lagu dhawaaqa imaadkiisa ka dhalan lahaa oo in muxuu aha dadka ay dhiboodaanna in laga reebo waaba hadiga nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam laakiin waxay u baahanaysaa arrinta iyada in dawladii islaamka meesha ka jirtay ama dawladii meesha ka talinaysay iyo culimada islaamka iyo majaamicda islaamiga ah ay arrinta iyada fatwo kasoo saaro oo yidhaahdaan arrinta iyada ah darteed ama cudurka nooca dartii jimcadii iyo jamaacadii guryaha waa lagu tukan karaa waa la iska dhaafi karaa inay yidhaahdaan mooyaan oo halkaas fatwo ay kasoo baxdo.